أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين. هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي. الله تبارك وتعالى wuxuu inoo diiday ama inaga reebay wax kasta oo dani inoogu jirin, dan adduunyo iyo dan aakhiro midna inoogu jirin. wuxuu inoo diiday inaga reebay wixii dhibaato adduunyo aakhiro inoo leh. waxyaalaha uu inaga reebay waxaa ka mid ah dembiyada sharciga oo la khilaafo, mucaasida, kuwa sii foosha xun, sinada iyo wixii la mid ah. wuxuu reebay dunuubta kuwooda qarsoon ee uu ruuxu qarsanayo iyo kuwa muuqda ee uu bannaanka iyo dadka araggooda ku samaynayo. laakiin si gooniya haddana rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu u sii reebay oo mudnaan gooniya la siiyey dembiyada kuwa la muujistoon la qarsanin. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ma jecla xumaanta in lala jahro. allah ma jecla tabaaraka wa tacaala bannaanka la dhigto, in la qarsadana allah ma jecla. laakiin waxaa gooni loogu magacaabayaa bimacnaa ta kale way ka halisan tahay. alla agtiisana tabaaraka wa tacaala way ka cuquubo iyo dembi weynta. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidkiisa ku sharxay oo ku caddeeyo nebigu wuxuu leeyahy sal lla alay waslam ummaddaydoo dhan waa mid la caafinayo. ilaahay tabaaraka wa tacaala uu caafinayo o cafinayo imtixaanaadka iyo ibtilaa'aadka iyo cuquubadiisaba uu ka caafinayo ilaa kuwa dunuubta la jahra mooye. waxaa ka mida buu nebi sal lla alay wasalam dembiga lala jahrayo inuu ruuxu habeennimo dembi sameeyo. habeenkii ayuu dembi sameeyey waana u qarsoonaa. ilaahay ma fadeexaynine wuu asturay. markuu waagu u baryey ayuu isagii isfadeexaynayaa. majaalista lagu sheekaystiya saaxiibbadii buu u imaanaya. markaasuu wuxuu leeyahy hebelow xalay waxaan sameeyey waxaas iyo waxaas. xalay waxaan sameeyey wuxuu sameeyey buu ka sheekaynaya. wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam waa cajiib. wuxuu rasuulku yidhi rabbigiina waa asturayaa, isaguna asturkii buu iska qaadayaa. waxay ka mid tahay mujaaharada. addoonkaasi dembiga markuu galayay u fiirso, dembiga si qarsoodiyuu ku galay. dembiga markuu samaynayey mujaaharo kumuusan geline sirri buu ku galo, baatin buu ahaa. laakiin maadaama uu bannaanka keenay oo uu bannaanka kaga sheekeeyey oo warkii cid kale uu gaadhsiiyey, wuxuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yahay mujaaharada ka mid yahay. waxaad u malaynaysaa marka kii bannaanka la yimid ee bannaankaba ku sameeyey. arrintaasi waxaa ka dhasha dembigu markuu ruuxu si qarsoodiya u sameeyo, inta badan cuquubada ka dhalataay isagay ku eg tahay. cuquubada ka dhalataay inta badan isagay ku eg tahay. laakiin haddii dembiga bannaanka loola soo baxo oo zinadii la fuujisto oo ribadii la muujisto oo dilkii iyo dhiiggii la xalaalaysto oo dulmigii bannaanka la dhigto oo qaawanaantii iyo curyigii iyo xishooddarradii bannaanka la dhigto oo kii samaynaya uusan cidna ka xadhig xidhannin, cidnana ka xishoonin, way ka culus tahay
marka kale xaaladda iyada ah ilaahay sunnadiisu waxa weeye cuquubada ka dhalata dunuubta noocaasa inta samaynaysa ku ekaan maysee in alla inta ka ag dhow oo dhan bay saamayn doontaa ama adugu roonow ama ha roonaanin ama ka qayb qaado ama ha ka qayb qaadanin maxaa yeele wixii haddii bannaanka loola soo baxay intii kalena way aamustay wey haddaad aamustay wixii oo bannaanka yaallana qayb baad ka tahay cuquubadu waa ku gaadhaysaa marka sunno ilaahay wey saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay zinada iyo ribadu qowm dhexdii ma muuqdaan oo ma daahiraan oo bannaanka uma soo baxaan ilaa hadday dhacdo qowmkaasi cuquubadii ilaahay bay korkooda ku dejiyeen wayba waajibsadeenba in la cuquubeeyo waxaa wax aad looga xumaadaa meelo fara badan oo ummaddan deegaamadeeda ah inay si cusub hadda uga bilaabatay munkaraadkii iyo fawaaxishtii iyo dunuubtii iyo curyigii si cusub kaanna waxaad mooddaa inuu waa cusub u baryay waa cusub oo la yidhi waa laydin xakamaynahay lo'biya laga celinayo ku fakatay sideedii in macaasida iyo dunuubta lagu yaaco oo badaha laga samaysto muntajacaad oo gabdhaha iyo wiilasha laysku fasaxo oo waxa noocaasoo kaleetaa la bilaabaaya waxaa la sugayaa waxa weeye cuquubo rabbi oo cusub waay waxaasoo kale inay ummaddu bilowdo ayadoo intaa soo ciqaabnayd 20 saniya ka badan cuquubo rabbi ku habsanayd inay maanta bilowda meeshii intaasoo sano ka hor cuquubadu kaga bilaabatay waxa la sugaayay waxa weeye cuquubaad kaloo cusub waay ilaahay sunankiisu waa sida ummadda waxaa loo baahan yahay waxgaradkeeda nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenada ka mida fii saxiixi albukhaari ayuu soo kacay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh hurdaduu ka soo booday markaasuu wuxuu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja haakada xaaskiisoo la joogtay baa waxay tihi yaa rasuula allah anuhlaku wa fiina asaalixuun rasuul ilaahay miyaana la halaagi annagoo dadkii wanaagsanana dhex joogaan culimadii ducaadii waxgaradkii iyagoona dhex joogaan miyaana la halaagi nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam nacam idaa kaura fiikum alkhabath xumaantu hadday idinku badato idinkoo saalixiintii iyo cubbaaddii iyo zuhaaddii iyo culimmadu idin dhex joogaan ayaa laydin halaagi buu rabbi iyo rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddan inqaadkeedii iyo badbaadadeedu in rabbigeed loo celiyo wey in diinteedii loo soo celiyo wey in rabbigeeda lagu soo xidho wey in asbaabta halaagga adduunya aakharaba keenaysa lagala dagaalamo wey ma aha in gaalo laga dabageeyo ma ahin fasaadka la furo ma ahin sufahada ummaddan halaaggeedaba sababta u ahaa in intas laga furo seetada laga furo oo la yidhahdo dhaqaajiya kadibna la tashjiiciyo ma aha ummaddan inqaadkeediiyo badbaadadeediiyo maslaxadeeda ma aha